ninkan la leeyahay maayir mooge heerada waxaan oran lahaa horta mid baan oran lahaa maanta wad maqasheen baan ogaa ma ogtihiin waxa jira maanta inuu soo dhigay maxay tanay Britole inuu saxaafada uu kula kulmay magaalada Hargeysa cali jirta hortaal waxaan leeyahay maayir ma shicib baa cabanayay mise saxaafad baa cabanaysay saxaafadu ma saxaafada iska dhaadhicinaysaayoo jijiidkii ay ku jijiidanayeen ku soo gaanay iyagu ay iska cabanaysaa in markaad shir u qabato dadka cabanaya waa dadka shicibka ee degmooyinka saddex degmo ee deegaan qacaliba leeyahay aadka joon iyo koodbuur dadkaas maayir ku doonaya ma dadka hor timaaday soo hor ima weyday hadaad hor timaado maayir dood qancin oo cashuurtoodii xagad geysay iyo wax ugu qabatay baad uga warami hadii kale anagu maanta ma aragna maayir dadkiisa la xisaabtay ma aragno afar wariyo oo asxaabta reerkiina oo familigiina inaad hool ku soo xidhato kolba ad meel maalintii horna nimankii aad xafladda ku casuutay mar reerkiina ay haayeen afartan maanta aad ugu yeedhaysaana waa nimankii reerkiina wax saxaafadda oo anaga namadasho haddaan dhalinyarada caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland anagu xagaa nooma joogaan cid anaga cabashooyinkayga wadaana ma jirto haddaad iska dhaadhicinayso leedahay saxaafadda iga dhima oo saxaafadda awal ku soo carin jirtay heerday haddaad ka dhacayso oo saxaafadii aad midna dacaamkaaga qaar dacaamka geysay qaar aad magaalada iska laalishday maayir anaga cabanana shicibkii xaafad magaaladan nahay maayir xaggaad cashuurta haydi geysay malo laba qacmood inaan kugula hadlaa doonaysaa malawe wallaahi baan kuri billaahi baan kuri tallahi baan kuri maayir wallaahi inaanan kugu deynin haddaad saxaafad meesha ku xidhatay iyo haddaad ciidan daba gashaba wallaahi inaanan kaa hadhayn oo billaahi kaa hadhayn oo kaana nasanin kawdhay sidoo arkaa warbaahinta qaarkoodna waa la eriyaa hadii loo lagu sameeyay sidoo kalena qalabkooda loo baafiyay qaarna uu soo dhaweysanaya xataa aragtidaas waxay tahay inaanu maayirku aanu rabin inuu dad qanciyo uu dadkiis ku dilo maalin walba waxaan lagu haystaa maxaa maayirka ku geeyay maayirka ma reerba isoo maayir magaalo maayir waxa noo cadeynaysa anaga maalin walba dadka haystaa waa dadkiina wax kale nagu haystaan maayirka cayda wali kuma aan cayir maayir daliil baan anagu wadnaa cay kuma wadno maayirkayga baa tahay waan ku leenahay intan ku leenahay maayirkayga baa tahay dambay ku tahay adiga laakiin cabashada waxa ka timid saxafiyiinta mise waxa ka timid bulshada ka timid anigu waxaan yaabanahay ninka maayirka waxa doortay maxay tanay shicibaa doortay may dooran maxay tanay saxaafad kawdhe shicibkan ku doortay ayaa ku qancinay islaanta ku fasaa ku doonaysa inay ku xisaabtato islaanta joogta wadooyinkayga ka baabeen baa doonaysa cashuurta ka qaado saxaafad maxay bixisaa saxaafadda maayir u tahay waxaad noo cadaysay inaad saxaafadda maayir u tahay wallaahi haddaad ka soo jawaabaydo maayir arrinka oo xaalan naga sii weydo aqliyadda ayaad iibsanaysaa maayir waxaan ku leenahay maayir anagoo si degan kula hadlano maayir kule war maayir wax ka wanaagsan ma jirto hadalkaygu weli xumaan naga bugaadhin maayir baan ku leenahay anagu dhaliil baan wadnaa wax qabadkayga baan doonaynaa maayir xaggaad waxa iga geysay ayna kaaga baahnayn ma fahantay anaga tolkay garxaajis waxba anaga isku keedili anagu tolkayga isma haysana waxaan isaysanaa ninka ina mooga la yiraahdo ina moogana waa maayirka magaalada ma fahantay maayirka magaalada waxa ka doonaa waxa iga taa kadib waxaan leeyahay saxaafadda anaga nin maanta na matali kara oo magaca dhalinyarada caasimada ku matalay xagaa inoo jooga tootir ma jirto inta maayirka de umad baa kuwa nala xisaabta maayirka maalinta bariya maayirka wuxuu wax la kulmaya saxaafadda maayir saxaafad kama caabineen umad baa kuwa nala xisaabta ma saxaafad kaliya taa ku soo doorato saxaafadda miyay kuwa nala xisaabta saxaafaddu warbay soo tabinay warkaas waxa kula in umada la xisaabta maanta saxaafadii baad maalinta bariya qol kula xiranaysaa cali jirda hotel alle saxaafad baa la xisaabtamaya saxaafaddu xisaabta kama rabto umad baa kula soo hor fadhiiso oo waxaan qabatay waxa ayaga cashuurteedii barta maree maayir meel loogu sheeg saxaafaddu qancin kama rabto ee dad baa kula qanci oo barta maanta ku taagan oo cod dheer cod gaaban kula la xisaabtan maayir Cabdikariim Moogo saxaafad kama cabanayso dad baa ka cabanaya shicib baa ka cabanaya ninka saxaafadiisa uu kama cabanaya dad baa ka cabanaya ninka saxaafad mala wax isleeyay ku haysta nin saxaafada ku haysta ma jiro ee wax ku haysta shicib baa ku haysta shicibkuna cod dheer iyo cod gaaban baa ku leeyahay Moogo la xisaabtan oo cashuurtii bartaad geysay dan ugu xisaabtan waxa tirmaanintii u dambeysay waxaad gashay xarada booliska maalinta waxa soo casuuntay dhowr qof oo adiga dadkiina ah dhowr qof adiga xaafadda dhistay dhowr qof adiga dadkiina soo casuuntay maalinta beriyana waxa soo casuuntay saxaafadii maxaa dadka maayirmo u soo fadhiisan laaday dad kama cabanayso saxaafadu kama cabanayso reerkiinu kama cabanayaan xagga deganta laga cabanayo dadka xaggan degan baa ku nala xisaabta maayir marka hore marda waad jeclayd laakiin hadda waad ka dhuumanaysaa waxa la yiri
geelow soco maanta ciin daaqda lagu yaaba eeg hadda geelow soco maanta ciin daaqda lagu yaaba ninkaagi markii hore kamaradaha u yeeran jiray waxaan qabanaynaa maanta dooxii baa ku jirnaa hagaajinayna maanta wax laga barayaa nala xisaabta maalin kasta saxaafadda meel soo gelaysa saxaafad kaaba cabanaysa dad baa kuma nala xisaabtan oo cashuurta iyo xagaadkiisa maayo dadka la xisaabta saxaafad kaaba cabanayso dad baa ka cabanaya maalinta bariyana kullu dadku meesha way ku war imanayaan annaga iyo qaar kale badanna meesha waa imanaynaa cod dheer iyo cod gaaban wax ku leenahay maayo nala xisaabta cashuurta iyo bartadkiisa nagula xisaabta ka difaacaya reer ahaan ku difaacayna waxaan leenahay hadduu maanta reer ahaan lagu difaacayo maayer mooge maanta haddii leer reer bal lagu difaacaya annaguna haddaba mooge reerku ka soo jeedo kale ka soo jeeday dawladda ku jira ee xil haya ayaanu ka xidhanaynaa cid naga difaacda xilka ayaan ku leenahay nala xisaabtamaadna maxaad noo qabatay badina naga difaacaan annagana difaac ma jiro maayarka waa la xisaabtamaya xaq baa dadka ugu leeyahay la xisaabtamaan la xisaabtama maayar dadkaaga dadka soo hor fadhiiso dadka ka dhuuman saxaafad kaaga cabanaysa saaxiibulahaydo aad baad u hor joogi jirtay maayar kuguma haysano reernimo maayar qabiilkaaga ma doonino maayar waxaanu ku leenahay kaalayo nala xisaabtan xagga waxa taagan dhammaan dhalinyartii saddexda degmo ibraahim koobuur gacan libaax iyo xilaata ka joon waxaan ku leenahay maayar cashuurteedii halkay martayna dow mari maayar nala xisaabtan annaga hana odhan waxaan la xisaabtamayaa wariyaal kumay doonayne shacab baa ku doonayo solteekaba waa kii shalay shacabka soo hor fadhiisanaye dakaalayo shacabkaaga soo hor fadhiiso nala xisaabtan maayar annaga hana odhan wariyaal baan qol ku xidhanaya aad nusbalaar uga wada kacday maayar waxaan ku leenahay iminkay fara ku jiraan gacmaha maayar iminkaad dhowdahay maayar iminkaad sharaf leedahay maayar iminkaad wanaagsan tahay maayar ha kala dilin dadkaaga maanta waxaad sababtay inay hargeysa kala xidhanto maayar ha sababin inay hargeysa kala dhimato maanta waxaad sababtay inay hargeysa kala xidhantee ha sababin inay hargeysa kala dhimato maayar si degdega noo soo hor istaag cashuurteedii naga dawbixi cabashaanu qabnaa waxaad noo qabatay kumaanu qancin 20 mitir aad noo qabatay kumaanu qancin maayarna soo hor istaag wayna qoweyday maayar cusub aan doonano wayna qoweyday maayar cashuurteeda noo daa annaga wax ku qabsanayna fariin uga dirno maayar cabdikariin axmed mooge waxa ayaan daraa mar labaad inuu maayar cabdikariin axmed mooge shacabkiisu uu ka dhunto maalintii hore waxaanu ogeyn inuu maayar cabdikariin axmed mooge uu taliska bilayska u galay maantana nafla caaridku uu la galay cali jirde saxaafadda uu la kulmaya ma iyagaa doortay mise annagaa doorannay yaa cabanaya ma saxaafaddaa cabanaysa afarta wariye isagoo ugu yeedhay mise annagaa cabanayna maayar mooge waxaan ku leenahay war annagaa ku doorannay annagaa codadka ugu badan kugu doorannay saddexdeeda degmo codadkii ugu badnaabaad ka heshay haddana waa saddexda degmo ee maanta waddooyinka ugu jajaban leh waxaad tidhi hargeysoo wada bilica ayaad helaysaan annagu hargeysoo wada bilica ma aragnee waxaanu aragnaa hargeyso loo kala hiiliyey daantaana la dhisay daantana ay noqotay daanta ugu waddooyinka jajaban leh waddooyinka ugu foosha xun leh waxaan ku leenahay maayar awal hore kamarada waad jeclayd mar walba saxaafadda waad u yeedhan jirtay afar qabqabliyaalaad ayaad meelahaad ka soo ururin jirtay waxaad odhan jirtay waxbaan qabtay maanta waxaan ku leenahay war maayar aan kula xisaabtanno oo cashuurtayada aanu ku weydiino xaq baan u leenahay cashuurtayada halka ay marisay maalintii dhoweed baad wariyaasha aad xumaysay maayar moogow maantana waxaad tiri wariyaashii raali geli war annaga nama betelaan wariye annaga nama betelo annaga shacabkayaga ayaa na metela waxaan ku leenahay qolo kuguma haysanno reer kuguma haysanno keliyata waxaanu kaa doonaynaa waxaanu xaq u lahayn oo cashuurtayadii oon ku leenahay haddaad waxba nuugu qaban weyday sanadkaa adiga kuu hadhay annagaa wax ku qabsanayna annagaa wax ku dhisanayna waxaanu ku leenahay wax cashuuraad nuugu iman karta oo nuugu soo hagaagi karta oo haba yaraatee ma jirto waxaan kolaan ku leenahay maayar moogow fadeexad iyo ceeb waxay kaa raacday taliska bilayska maalintii kugu qaadannay laakiinse maanta kugu qaadan mayno baaqayaga in badan waad ka dhegaadeegtay baan ku leenahay maayar moogow mar dambe kugu eegan mayne xafiiskaaga dowladda hoose waanu naqaanaa bartaasaanu kuugu imanayna bartaa meelaan ahayd kaasoo dhex qaadan mayno waxaan ku leenahay yaa haddaad halkaa ka joogi weydood wariyaasha iska dayn weydo wallaahi waan kuugu imanaynaa intaasoo dhallinyaraad arkaysaan waa saddexda degmee ka kala socdaan waxaasoo dhallinyari waxay u socdaan siday xaqooga iyo xuquuqdooda iyo cashuurtooda saddexdooda degmo ay ugu heli lahaayeen waar waxaan ku leenahay hadal badan hanma buuxsho waan kula hadalnay cod dheer waan kuu soo dirnay baaq dheer waan kuu soo dirnay maayar moogow dheg jalaq waad noo sii weyday wixii aad ka hesho waxba annaga hanaga siin wallaahi dowladda hoose waxaan isleeyahay maanta waxaad ka hadashaa erde ninka la leeyahay maayar mooge
anagu horta maayir moogaan ku leenahay maayir kawdhadii maayirkayga waa tahay oo ilaahay baa naga kaa dhigay inaad maayirkayga noqoto kawdhadii anagu ciyaal xaafid yaroo meel jooga laha hadli mayno laakiin maayir caasimadeed aynu anagu la hadlina horta waxaanu leenahay maayirka caasimadda dee maayir dee horta su'aalahan lagu weydiinayo ma shicib baa ku weydiinayaa mise saxaafad saxaafaddani maxaa tahay shicibku maxaa tahay shicibku waa islaanta caanaha yar suuqa ku dhex iibinaysaa waa islaanta khudradda yar suuqa dhex fadhidaa waa islaamaha guryaha ku jira dhagaxa iska eegi kari lahaa aan gaadhi wadan ina yaro saxaafadii oo gaadhi wata fiidha ama wantan yar wataa dee maayir ee kumuu dooran codkaad ku soo baxday waxayaan 22,000 10 inan iyo 4 inan oo warkaa duwa maaha maayir ma fahantay markaa maayir waxaan ku leenahay bal hortan iyo arig imika beriga hore waad fikri jirto waad shaqo jirto shaqadaada way soo socotay imika wax laga yaabaa dib gurashad bilowdan ma leeyahay maskaxdii adoo intaana xaal ka qaado laakiin maayir waxaan ku leenahay maayirno anaga ku doonayna anaga wax naga dhiman yihiin anaga deegaanadaadii iyo degmooyinkayga anaga shaqo la'aan ka jirta wada la'aan ka jirta caafimaad la'aan ka jirta waxbarasho la'aan ka jirta meel walba dhagax baa yaalay iyo wadooyinkii hore loo dhisin way jajabeen maayir maalintii hore jeelkaad gashay oo maalintii hore waxaad sheegaysaba xisaab sanadeedkii baa ahayd oo taawan ku qaadanay oo waxaanu qaadan karnaa adoo misaal sanadeedka soo bandhigayso dee waxna wada hoos gelinaysa laakiin tan maanta ee dadkaaga aad qancinayso maayir herdee 4 weri oo jeebkaaga kugu jiraad wareysanaysaa magaalada caasimadda iskuma jirto qayb baa kaa cabanaysaa qaybta kaa cabanaysaa anaga ka mid a waxaasoo dhallinyarada arkasay waxaasoo xoogaad arkasay waxaasoo aqoon yani waxaasoo dhallinyariiba wadadkii deegaanka ee degmada deganaa maayir anigu qabiilku kuma haysano qabiilku kumaana iman shalay tolana solteeka marka lagu caayay maayirka iga hore heerdee wadooyinku xumeeyey dee waxqabad baan ku haysanay reer gaara oo odhanayay ka daaya solteeka waa sidan iyo in adeerkan iyo waa sidan mana arki jirin waa maxaa keenay maanta maayirkan caayano ma diintan ka baxnay soo maayirka lama dhalin karayo maayir diinta kamaana bixin waxa ayagii baan doonaynaa cashuurtaydii baan doonaynaa xagad geesaan doonaynaa annaga kolba meel yar ha noo fadhiisan maayir na hor kaalay na qanci na xisaabtan way noqon weyday maayir intaa hadhay anaga wax cashuurood na weydiin kara soo noo iman karaysa ma jirto ha noo iman maayir ma fahantay markaa maayir hadalku intuu wanaagu leeyahay buu wanaagsan yahay kawdhe nin kama xoog weyna nin kama caqli badnaa nin kama aqoonyasanaa laakiin waxa laisku intaa waa tanaasulka iyo ixtiraamka laisku leeyahay maayir baan ku leenahay maanta maayirkaygii baa ilaahay nooga kaa dhigaan ku leenahay wixii intaa ka dambeeya haddaad arikaana naga jooji wada anaga wax weriyaayona matalaya ma jirto weriyahan xagu ka soo toosaa waa deg 4 guri ka soo toosaa ma 4 guri baa ku wareysanaya weriya dadkooga la dareen muu jiraa 4tii ooyay wadi ogaayo waa ku wada maqnaa maalintii dacwali dagaa ku dhacay ay ka wada dhaceen kawdhe jigjiga ku maqnaa jigjiga weriyaasha leedahay ku nimatalayaan xageebay anaga nagu matalaan waa miyay nimatalaan weriyaal ya wariyay matalaan muu jiraa anaga wariyay matalaan ma jiro annaga afkayga u hadlana annaga waxayga u doodana maayir na hor kaalay na qanci